على رسوله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي ولا ليال إن شاء الله تعالى وحن لنولانينا لحظة ير نلوشينا كميدا qoyska muslimka ee ku nool galbeedka iyo wixii mashaakil ay haysta maxaana xal u noqonaya waxa mashaakilka ah ikhwaani wax weeyaan waxaan haysanaa alxamdulillah diin ilaahay inoo soo dejiyay subhanahu wa ta'ala diinta rabbi wuxuu ku tilmaamay nuur qad ja'akum min allahi nuurun وحا إلهي أكتيس إني جاي من نور يا كتاب عض كتاب مبين بو إلهي سبحانه وتعالى مركا الإسلام دينتي ونور وحا الله قلت لك لي مجدية دا الدنيا بدوية الدنيا دا إن أكون حصو عنه أو نسكا إفنه أو نل أينون نقطو أنو كوكا لصارنه وحا وناكسن يا وحا أنا وناكسنين markaasaa daraaddeed waxaan jeclahay meesha aan ku laamayno aan xalka ka doodoonayno waa diinta ilaahay weeye subxaana wa tacaala waa kitaabullah iyo sunnatu rasuul sal lla sallam waxaan muxaadaradeeda u qaybin doonaa afar marka hore waxaan isweydiinaynaa qoyska muslimka ah muxuu kaga duwan yahay qoyska aanan muslin ahayn markaan leenahay qoyskani waa muslin qoyskanna muslin ma aha maxay ku kala duwan yihiin labada qoys ayaan kelmad ka oran doonaa marka labaad waxaan ka hadli doonaa reer galbeedku meeshan aan degannahay maxay kaga duwan tahay meeshii aanu asal ahaan aan ka imanay barigii adduunka ambase caalamkii muslimka afrika maxay kaga duwan tahay maxaa positive ah oon ka faa'iidaysanaa maxaa negative ah oon iska ilaalinaa marka saddexaad waxaan ka hadli doonaa mushkilaadka oo ilaa 5-6 ah ugu culculus ee haysta qoyska muslimka ee galbeedka ku nool ugu dambeyn marka afraad waxaan ka jawaabi doonaa maxaa xala solution maxaan kaga hortagnaa dhibaatooyinka culculus ee inhor yuurara ee qoyska muslimka ah haysta marka waxaan rabaa inaan سدا إسكولا صعنو إسكولا جان قادنا إن شاء الله تعالى إخواني واحد أختهين قويسكو وحال هذا قويس قالدو يرجع بيتكو ما أنت قويسك واحد أقيبيان لبو واحد هذا قويسك تراديشنالكا يقويسك مودرنيكا مركا قويسك تراديشنالكا واحد وجدان كأنكو أنو كنا الله هويني iyo ninkeedii oo si sharci isku qaba oo guri ku wada nool marka leenahay si sharci isku qabaan waxa weeyaan markaan muslim nahay waa in la isku guursado habkii fiqiga islaamka ogolaa oo shuruudii ay u dhanaato marka ay ku sharci leeyihiin waa ina la isku mehersadaa amba kaniisada amba dawladda horteeda dawladda hoose horteeda meherku ka dhacaa ka waxa u yaqaanaan traditional waa dhaqan waa soo jireenkii waxa jira qoys kale oo la raado qoyska cusub isagu wuxuu kala baxaa 3 nooc annaka agteena 3 nooc midna qoys kama aha muslimiinta agtooda qoyska koowaad waxa weeye waa laba ruux oo wada nool oo wax contract uu ka dhaxay laakiin isku waafaqay inay wada noolaadaan jirkooga inay isa siiyaan oo ninkuna ka faa'iideysta gabadha jirkeega gabadhuna ay ka faa'iideysato ninka jirkiisa yani waa zawaajka macnihiisa waa sheegi doonaa waa midda labaad waxaa dhahdaa waa qoyska mithligu waa maxay waa qoys laba ruux oo isku mid ah ay guri wada fadhiyaan oo diinteenu aynan ogoleyn siba
bini aadanimada saxda ana ay diidan tahay oo ah nin qaba amba gabar qabta marka midba la qabaa midna uu qabaa marka labadaasi noocna waxaa la dhahdaa الزواج المثلي الأسرة المثلية واللبدي اسكو ميدك أحد قويس كصدحات وأنكو أن أقولين وحوية الأسرة النمطية قف كليجي نول والله اعترافه إنه يهي قويس وحو قويس كنا قرياس يالله فربضن وحيرش إيمك الله سمايو لأدبتيو الأقليسيو نوعاس محال دها نوعاس وحوية وانين كليجي سوسكنو ليهي وحو ربا إنو إلما يشو إلما سيو يشو وحو كريسانا يا قبر وحن بارتا قبر داسي رحم كيجي بي ككرينيسا نكاسنا بيهي سيبا لغشو بيا قبر دا إلما حيداليسا كدب إلمي بي كيانيسا ilmahaas buu qaadanayaa uu korsanayaa sidaas oo kale waxaa la mid ah gabadh keligeed nool rabta inay qoys noqoto si ay qoys u noqoto iyaduna nin bay ka kiraysanaysaa biyihiisi markaaba lagu shubayaa markaaba ay uuraysanaysaa way xambaaraysaa wadhalis hadday doonaana waxay oranaysaa qof biyihiisa nin kale iyo gabadh kale la isku shubo ilmaha aniga hala ii keeno haddii kaleeto ilmaan adobtaynayaa africa laga soo qaado meeshii dooniba qof ilma tuuray waan anaa korsanaya waa tabani haddana qofkaas waa keligii wuxuu guriga ku nool yahay ilmuhu haystaa wuxuu noqonayaa waxaa loo ictibaarayaa qawaaniinta qaarkood qoyska macnaha la yidhahdo waa al-usar alxadiisa al-anmaad alxadiisa waa hababka cusube qoysaska imika loo sameeyey جزاكم الله خير على نقطة وان هرجبنا وجهها مركا إخواني في الله مركا أن لنا هي أنكو قيس مركا كهلا إنه قيس أسرة عائلة غير جوري مركا كهلا إنه وحن كهلا إنه وحوي وجوري مسلمة أو أركان لبعض لبر ركن بوليه إسلام كقيسكو ركن ومادي ركن ومعنوي ركن ومادي وماتريال ركن وماتريال وإلا هلو أفر الرماد مركا اللي هلو بقولي نقنايا حقي ماتريالك كو وإلا هلو نين رباه قبر إنه جورسدو قبرتا مركا أو جورسدو إساقا جورسنا يا قبرتا إساقا ضمنايا ينو يقولان إسا عقدي واحد هذا قبول يجاب ويسقبليان والله بصدح وإن قري أجره غير أقل قري لقول نول يهي قري قاسين تدوني هلا كادو وإنه هدف كي يهي أبط إنه إلهي النسية سبحانه وتعالى أبط كان وحى بحيا الله مركا إذن أفرتها ركني وحي مثلان ومادي ولا تابنا يو قري جيبي مثلان قار waxay ku daraan laba rukniga waxay ku daraan guriga waa inay ka jirto nafaqo waa inuu ninku keeno raashin iyo xoolo meesha lagu cuno gabadhuna waa inay keento haye iyo aqbalaad nafaqadii iyo daacadii marka inta is helaan gurigii xagga materialka uu buuxsamay halka macnawiga gurigu arkaan rukni macnawiya jira oo isaguna saddex buu kala baxayaa kow waa inuu yeesho ruknigu koobaad ee macnawiga guriga waxaa lagu saleeyaa islaamka dhexdiisa xub jacayl waa inuu jiro jacaylku wuxuu ka dhigan yahay guurka hortii waa been waa ka lagu matalo riwaayadaha Soomaalida kaasi laga soo dhaadhiciyay in uu jacaylkaasi run yahay yaa qays iyo layla kaasi waxba kama jiraan wax la taaban kara maaha laakiin jacaylka runtii wuxuu bilaabmaa marka ay ninka iyo gabartu guriga soo wada galaan sidii nabigu sallallahu alayhi wasallam uu foodeeda qabto
وفود ذا سوجيتو هل كان فود ده دور قربان وشاقي داليرada guurka ku cusub dadka waaweyn maaha dhalinyarada guurka ku cusub dhowr goor baan u sheegay halkan nabigu wuxuu yiri gabadha foodeeda qofku ha qabto waliba anu waxaan ku daraa hana ka dhukado oo marka uu ka dhukanayana si umqi laha u dhukado si dheer maaha intuu dhaw ka soo qaada maaha waa inuu ku raago muddo waa inuu uu afka ku hayo meeshaas maxaa yeelay meeshan waxaa ku jira maskaxda qaybta amarka bixisa ee iminka amarka ina siinaysa halkanay ku jirtaa lanasfa'an binnaasiya naasiyatin kaadibatin khaati'ah ilaahay subxaanah abi jahl wuxuu yidhi waxaan qabanaynaa oon jiidaynaa food khalada badan oo been badan marka foodu khalad ma leh anugu horta food ma lihi laakiin dadka fooda leh foodooda haddaad qabatid foodu khaladna ma leh beenna ma gasho laakiin fooda hoosteeda qayb maskaxda iyo maankiyaa ku jirta qaybta halkan taalla amarkay bixisaa qaybta ugu dambayso halkan taallana waa qaybta xasuusta aqoonta iyo tadkiirada lagu guro qaybtanna waa qaybta decisionka laga qaato xagan amarkay bixisay laakiin markaad qarar qaadanaysid maad guursataa maad furtaa ma iskaga tagtaa maad korisaa lacag ma dirtaa miskiidka ma aadaa qaraarka hagee qaadanaysaa qaybtan bidixdaa qaadanaysa qaybta midigtuna waa qaybta jacaylka iyo raaxada iyo naxariista halkan walidaalika waxaa la dhahaa dumarku markay fikirayaan midigtay ka fikiraan raggu markay fikirayaanna bidixday ka fikiraan walidaalika baad arkaysaa nin iyo gabadh had iyo jeer marka ay qadiyad ka sheekaysanayaan isku fikir maaha wuxuu oranayaa qadiyadda anu waxaan leeyahay waa sidaa iyadu waxay leedahay waa qaldan tahay waa sidaa li'aana dhakan bay ka eegtay isaguna halkuu ka eegay dhakan buu ka eegay maxaa laakiin markaa la rabaa waxaa la rabaa waan sheegi doonaa ninkuna inuu isnaageeyo isgabadheeyo markuu fikirayo gabadhuna inay isninayso waa problem way adag tahay laakiin waa inaad isninaysidood waa mar kale aan ka sheekaysan doonaa insha allahu tacaala waa wax la barto weeyaan sidee la isku gabadheeyaa raggu waa inay bartaan waxay guryaheenu ku dumayaanna waxa weeyaan ninkiioo dhina hadlaya gabadhiyo gabadhna u jawaabaysaa kaale isku keen waa la isfahmi lahay markaas walaalayaal arrinta koowaad ee macnawiga ah moralka ah ee guri uu ku dhismo waxa weeyaan waa jacayl quraankuna wuxuu yiri uu u bixiyay mawadda muxuu u bixiyay quraanku mawadda wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawadda arrinta labaad ee gurigu u baahan yahay waa maxay ee rukniga kamida waa moral waa maxay waa raxmad guriga haday naxariisi jirin ma jirayso ma dhismi karayo gurigu maaha saalooga dhex yaala saalada maaha gurigu maaha sariirta lagu seexanayo gurigu maaha meesha cuntada lagu raashinka lagu karinayo gurigu maaha qolalka ubadku ay seexanayaan gurigu maaha televisionka yaala gurigu wax dhex yaala maaha gurigu maaha daahiyada ka laalaada maaha labiska gurigu maaha inta gaarida haysatid gurigu maaha inta dahab ee guriga yaala gurigu maaha maxaa ii yaala kootaha maaha gurigu waxa weeye qalbiga odagayga maxaa jacayl iyo naxariis ku jira sidaas oo kaleeto qalbiga xaaskayga maxaa ku jira naxariis iyo jacayl waa taa weeyaan waxaan idhaahdaa anigu guryaha Soomaalidu waa laba oon amba waa hotel amba waa xabsi marka qofku hadduu xabsi ku jiro markuu guriga ku sii socdo ninku uu sii ashahaataa marka ay gabadhu maqasho odagii inuu soo socdo guriga garaacayana way naxdaa kiina uu yimid bay tiraahdaa marka maxaa dhaca waa xabsi weeyaan ambase waa sidii markaan Afrika joogno kale waa hotelka waxba lagama qabto waa la seexdaa
ولا توصا ولا راشن عنا ولا شن هكذا اسكت دقا ولا اسكت صعدا ولا طبق قراء ولذلك أنكو أفريقيا مركز جقولنا قريين وحي هايين هوتيلو مركز إيماني رجال بيت كنا حبسيه نوه قريين مركز الله بدأ ما كنا حجرنا مركز وحرمنا إن قريين حبسنا كسرنا هوتيل كسرنا أو كردقنا قريين حريسنا أريتا صدحات قريق أبا هي معنويا ومحي وحوي إن لقاه له قريق الدحديسة سكن سكن هو محي إخواني في الله وحصلوني وي سكن هو حوي قفكو وضرتين حديث كي النبي صلى الله عليه وسلم قفكو مركو قرآن كأخريو مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة سكينة وحصلوني وي ونفتو ما تديس نفتو ما أرضيسو ما أرجع حيسو ستريس ما قلايسو ما عبسانيسو وحويان قفكو مركا ويسكوها الليو قبرتو مركا يسكوها الليسو ودقيقة نينكيقة أي تراهضو نولوش هتنن إساقا كاهور جوغا سند وي سند وبور نينكونا مركا ودا قبردو ودفء وماشي ودبتي هو يدو كالي دبتي داد كرا حيسانيسا وسكو سو تورو وهدو بروبلم سوقا كلا سو كلمو intuu saaxiibadii u sheegayo horta iyada u sheego ku dhaho waxaaba igu dhacay waxa kala igu dhacay sidoo nabigu khadiija ugu waramayay ay khadiijana ka dhageysanaysay sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anha sakan waxasilaya problemyada la isku xasilaya jirka xasilaya aqliga xasilaya waxaas oo dhan ba marka quraanku muxuu yiri litaskunu ilayha hatta akhrista macaan ما أتكو لتسكنوا ومعان إليها مركا قفك بني آدمكي وسكوها الليلة يا لبيو صدن قبضات يا سؤال لويدي وحالودي بوراقات وحالوغونا هاي نيكا مركا دوغو جعش هاي واقورتي نيكاغا سؤال شاو في صديا واللبيو صدن قبضات وحيكو جوابين وحالوغو جعلها هاي marka laabtiisa ku jiro waa qurux maaha sama qurux badno marka laabtiisa ku jiro iyo ninkay ugu jecelahay macnaha way isku tuurtay 230 nin baa la weydiiyay xaaskaaga goormaad ugu jeceshahay baadhi markaan tafaheyga dusheeda ku jiifo Soomaali malaha kuma wajibsado malleeyaba laakiin way dhici kartaa dadka imika ilbaxay ku jirtaan markaa ku jiifso معناها واصيد المها يربط هو يجوز يحنيه وحنا نكو والما كريون نكو والما وينادي نكو وذات كنا حكوا هاته والما ويناديون وحوبها هي قبردو إن النقطة إن عيارته أفر دور أفر الرماد إن عيارته قبردو مروى إني هو النقطة يدو هدنا حاسكي مروى إني ولا النقطة وواحد أكتهي inanku walaashii sirta ku qarsadaa mar waa inay walaal noqoto marna waa inay saaxiib noqoto saaxiib oo kale wafi'a marka ugu dambeeyana waa inay xaas noqoto waxaas oo inuu ka helo gabadhuna maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay inuu mar aabba noqdo aabbaha maxaa laga helaa tala laga helaa aabbaha maxaa laga helaa iftiin baa laga helaa aabba waa inay ka helato mar waa inuu walaal noqdo walaalka waa garab عدو كهر جوكسنيا وأنا ولا نقطة مرنا وأنا نقطة كونسلتان مستشار نقطة صاحبة وقدام بينا دوينا نقطة حاسي قضي أوكي وحا أوجد جدا وحوي والله يسكو حسيلا يعني مدقون مدكو بحسيلا يعني لبضبا ويسكو حسيلا يعني هذا با قويسكا أنكو قربنا وإنه لبضا الركنية شو هدانا هي دادك ما أنت يوروب iyo America iyo Canada iyo Australia ku nool waxaan ka fikirnaa inaan hello guri wanaagsan inaan hello ubad wanaagsan inaan hello gaadiid wanaagsan waa wax fiican weey inaan hello
haddaan nin ahay gabadh wanaagsan ninkuna gabadhuna saas oo fikiraysaa laakiin isma weydiino sideen u heli lahaa gabadhaydu inay wanaagsanaato sideen uga dhigi lahaa ninku su-aashaa isma weydiiyo gabadhuna isma weydiiso sideen ninkayga uga dhigi lahaa nin wanaagsan okay waa mawduuc ballaadhan waxaan u imanaynaa qoyska muslimkii muxuu kaga duwan yahay qoysaska kale aanan muslimka ahayn okay wuxuu kaga duwan yahay 4 shay ila socdaya qoys kasti oo adduunka jooga waa qoys muslima iyo qoys aan muslim ahayn okay qoyska aan muslimka ahayn waa kristan waa yahuudi waa cilmaani waa laa'ik waa bilaadiin waa buddhism waa hinduus waa siikho wuxuu doonay ha aado qoyska muslimka ana waa laba ruux oo ilaahay rumaysan iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam aakhiran u jihaystay marka labada qoys marka u fiirsatid maxay kala duwan yihiin kor waa la iska eegyahay gurigan waxa ku nool wiil iyo gabadh isqaba iyo ubad way ka soo baxaan dugsiga aadaan gurigana gabadh iyo wiil muslim isqaba way ka soo baxaan dugsiga ciyaalka geeyaan way isa salaamaan maxaa u dhaxeeya waxba ma dhaxeeya korka laakiin maxaa u dhaxeeya hoosta afar shay baa u dhaxaysa koow arinta koowaad waa maxay waxa u dhaxaysa ar-rabbaaniya lil maadiya guriga muslimku waa rabbaani guriga muslimku waa rabbaani ilaahay buu ku xidhan yahay material kuma xidhno guriga muslimkii lama shaqeeyo kootaha maxaa biiray maxaa naaqusbay guriga muslimku adduunka kama argagaxo guriga muslimku muxuu la shaqeeyaa allah okay waa guriga gabadha muslimadii ay ka leedahay odaygeega fi casri saxaaba markuu albaabka ka baxayo wariyaa waa shaqo tagaysaa ha laba waana iga sii qaado maanta de moojina hablu waaniya ragay laba waana iga sii qaad xalaal soo shaqee nabi muhammadna quraan iyo xadiis waxun ka soo qaad adoo labadaas la soo noqo marka uu habeenkii soo laamana wixii uu soo laamay bay weydiisaa ma sidaa xalaashii ha rasuulkiina maxad ka sidaa way ka qaadaa kadibna waxay tiraahdaa aniguna diyaar baan ahay waxaad u baahan tahay dhan adoonan i weydiin baad iga helaysaa su'aal kaagama baahno daba orod kaagama baahno hadal kaagama baahno telefoona soo dirtid kaagama baahno inaad erga soo dirtid kaagama baahno waa iska ka helaysaa okay marka si basaaday u noolaayeen maxaa keenayay aayadaha quraanka suuratu nisaa suuratu al-ahzab suuratu an-nur suuratu at-talaq suuratu at-tahrim ya ayuha alladhina aamanu ayaa lagu wada yiri yaa la hadlayaa al-iimaan maxaa la leeyahay waxa laga hadlayaa qoyska muslimku sidoo u dhaqmi lahaa waxa laga hadlayaa saacadaha ciyaalku ku soo gali karaan guriga ee dharka la dhigto iyo saacadaha la soo gali karin iyo saacadaha la soo gali karo waxa laga hadlayaa sida maxaa ka xaraana maxaa ka xaraanahay galmoodka waxa laga hadlayaa si la isku raali gelinayaa وعاشروهن بالمعروف فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان عظيم وحأصعد إلهي محوغها الله بعد قوله يا أيها الذين آمنوا النبي يقول محمد صلى الله عليه وسلم مركو رجل لي اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء إلهي كقعب صدها وينك أتقبتان فإنكم وحدكو حلاشتين عوردوا ده كلمة إلهي سبحانه وتعالى مركب محان دحني لبضر رير محاو دحيا كان waa maadi adogta hay imisaad kaani waxaan aad sawirka waxaad aad u qurux badan ma taqaanaa laba ruux oo wada nool oo isjecel oo aad ku wada jirtaan saf adiga iyo xaaskaaga wada socda amba adiga iyo odaygaagi iyo nin kale oo cad gabadhii uu qabay baa la socota amba saaxiibadii baa la socota وإني هر صعدان أنت أد صعتان وتكون صعتان ماشي راشيك اللي جورني مقاعده لبدن قفي ويسكلا الله دانون ويسرد ركنا يان
meel kasta iska taabanayaan war aqalka ma yara sugaana ila guriga tagayaan adiguna hagan baa iska joogta waa daba socotaa marka meeshii la gaaro lacagta lagu bixinayay nin walba boorsadiisa soo saaraya isaga iska bixinaya waa labadii qof ee wada nooleed aniga mar waxaan ku arkay wadanka Norway anigoo hotel degan laba nin gabadh Faransiis oo socda iyaan qol baa si khalad loo soo dajiyay aan hurday oo la isla seexdo hotel baa weyne marka ninkan waa wadaad iyo warala wuxuu yahay ma garanayaan way la soo seexiyeen laba qof oo socota waa yaabay marka habeenkii marka aan salaadii fajr u kacay baan arkay laba ruux oo meesha fadhida wax dambi ma sameeyay laakiin way hurday way jeefaan anigii waan iska soo weysaystay salaadeedii waan iska tukaday salaadii aan tukanay bay daawadeen kadib yakiiba ana waxaan sugayaa wafd dadkii iimaadeen oo dhadaan hotelka la igey meesha maxaa ka dhacay xalay tole okay maxaa dhacay gabadhii waxay rabtay inay gasho masqulaha ay soo qubaysato waxay samaysay wixii yar ay sidatay boorsadeedii iyo dharkeegii waxay la aaday halka kama tagayso waa la iska ilaalinayaa ninba wixiisu leeyahay markay soo meertay soo cadatay soo baxday isaguna wixiisii yaraa waqaatu la galay iskuma dhiibayaan isi xaji ma jirto nafsi weey laakiin maxaa la iska raaxaysanaya waa material jirka weey wax la doonayo xisaabtu waa jirka uun okay waxaan la haynaa rabbaaniya la maadiya labo waxa lagu kala duwan yahay insaaniya la xayawaaniya qoyska muslimkii waa insaaniya waa bini aadanimo laakiin qoyska aan muslim ahayn waa maxay xayawaannimo okay qoyska muslimka ah afar su'aalood buu ka jawaabayaa anigu xaaskayga amba waan isku qalmoonaa maxaa isku qalmoonaa waan isku baahannahay laakiin maxaa ka sarreeya waxaa lagu leeyahay markaad xaaska isku qalmoonaysiin dikri akhriya ha iloobina allahumma jannibna shaytaan wajannib ash-shaytaana maa razaqtana bismi illaahi dhaha ilaahay xasuusta ilaahay u mahadnaqa إنسان هذا لبو طلبات وحال لقولي هاي مواضع اسكا إلالية اسكا تكرين صدح وحال لقولي هاي حيوان سيسا اسكا تكرين ورابيان هنقولين همين كهار العباضية وصد حيوان كان نقولين أفر وحال لقولي هاي هدف هيا شيء اسكا تكرينه أو هدف لبا الشيء إن الحلال ميرتان إن الأبد إلهي نسيه أوكي هذا وقت أبد كنافتنا إلهي برهال قلنيسين شريعة ديسي حارانتا وحاصورنا قف كان إياكم حيسكو تغيان وحي أي مسيين جركا إيالا أنا على جركا وحان سين قف كان دونو أوكي سيو سين كرتا نم بيلاد هاي عاوة وحي ربطا إنا إسكا سو عيارتو وأوشيغا ساحيرا عاوة سو يرا رال نقو مورا كريا كيف جركا إيالا ما أضالي بساني قالي أضالي خلاص كما هل كريه وحرية شخصية أوكي يدور وسجر وساس وكريته وحيالا اسمها حاجة والنوع من الحيوانية بني آدم ماها حيوانك حتى قاربة جرا مسيرة حيوانك قاربة مسيرة وحكم إذا لباحة جوشي سهداتكم بيريستيد بلاياكو قبصني وبلال بايضامي لكن خنزير كهداد كم ميريستيد وكسوء يقولون كسي جسير سو مركا الله مرة بو إنه قفك بني آدم نمدي سوائر النبي صلى الله عليه وسلم حوينا بري إنه قفك عردي يسائل عليه يسمع ديس وإنساني أريد صدحات قويسك مسلك محوك قدويه قويسك كله التكامل للتنافر قويسك مسلم كها قبض يويل كويس بوحيان اسمه جيران maxaan ka idhi markii dhaweyto waxaan ka idhi haweenku waxay ka fikiraan jaanibka midigta raguna waxay ka fikiraan jaanibka bidixda yaani ma aha rag oo dhan haween oo dhan ma haweenka waxa jira qaran ka fikira waa sida dumarka loo yaqaan dumarka xadiidka sida islaantii loo oran jiray marka tajir ingiriis xukun jirto kale amba islaanta libika jarmalka xukunto kale noocyada caynkaas jira oo anugu qarn waxaan ku daraa sidii islaantii saba حكوميسي ترى إني أسلمت
إني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين بلقيس يا مركز امرأة حديدية هيد لأن قوم كي يقولون بديتو كسو قاطين دمر وحاجرة أدق ودتكو هجامية لكن وحاجرة دمر أنت بدن دمركو حاجنا كفكران رجنا حاجنا كفكران محل لو سمي لبدن كل دون وحال لو سمي التكامل اللي اسبوحيو هدي ونكو إيا قبضو اسكو فكر هالهايين المها دي من الهادي لبضو هدي عاطفيين نقول لهايين قلبي كود هالهايين oo ilmaha naxariisu lagu korin lahaa waxay noo soo bixi lahaa oo ubad yar wada diyaagada ma la cuni de marka yak lama rabade hadii uu sida rag loo wada fikri lahaa alhazm raganimo adadkeen lagu fikri lahaa oo gabadhuna nin noqon lahaa ninkuna nin noqon lahaa wada libaax bay noo soo bixi lahaa hadaba de marka aqlada lagu dhiman lahaa noloshu si takaamul u yeelato ilaahay uu buuxiyay gabadhina caadifu ka dhigay ninkiina xasbi uu ka dhigay say isku buuxiyaan لكن إمك محيي سميان رجال بيتك وحي كلين صار له بحنو وين سكبل الله نقضه قبضنا وين ننقطه نكون وين قبضنا نقضه وحاجة واحد هذا الأمومة المصطنعة هو يعني ماذا الله سمعيه وحال يقول لي هذا إسلامته حاسكو هذا أفر جير هبيك يسوق عضو أي المه نوجسه هذا يقول أفر جيرك على سوق ويلمه نوجي وده محل نوجيها وحال نوجيه ما هي مصاصد النوجي هو يعني ماذا وين البرتيد أوكي يدنا أبي نقول مياه يدنا أبوه الله سمين دونا إيه وح إلى هاي قيبية فرح الله قليا سبحانه وتعالى ما صعون يسمرك سلام كوع عليا المه وحبه هي اللي بدأ السنة وجوه الرئيسة نبته يدا نقص هو يدا كصوب حياة المها كوب حياة أبها حبه أبوه مركز وحبه وهو يدا مركز وتاسوا وأردت صدق أردت أفراد وحويان التفاهم للتناكر التفاهم للتناكر التفاهم حاجة كانت هاي لبدا الروح ودا النولي إلى إسفهمان اسكت إلى إسفهمان أين إسديدين أنا واحد إلى هذا لبشي بو عذاب هذا يفهم ياه لبشي وعذاب ما عذابه وها عذابه التناكر الأبدي إن ولي قام وضيع إسخلافتين هذا عذاب في عذاب وحين عذابه التوافق الأبدي إلى واحد وقوافق ضدك سركع هي فريسو هي جيفسو هي عيال كسيحي هي دقم باتا مركا بدون رأي بلا رأي باتا أوكي يسقون هذا واحد وقوافق معها وحال الربا شخصيات هذا الشيء أرنتن سدا صح معها سدا ناكس حسن لكن هدات تلاحظت إلا بإلا أنت سيد هذا قوام له إلهي وحد النبي أضيع حاس كونك أضيعها لكن صان سحمها هدو آيات قرآن كوري مادنا وأسكها شاكين ساكوده هي حديث هدو كوري مادنا صلى الله عليه وسلم هذا جسرين لكن وحي كلا رأي علمي لسودينيو رأيها كديبه هدو كده جنا أقبل مركز ضمبه لكن رأيها شاك وأنا موقف كذا شك تبين مركز محل الربا قفك وحال الربا ده حد نمضى أوكي إخواني في الله وحانو إمنا الرجال بيتكو رجال بيت كنا كنا ولا وسواشي لبعضين رجال بيت أو بحاتها وعجيب رجال بيتكم أنا كل رجال بيتك قار وحي ستان مرايد مدو مرايد محل هذا باش الله يحده أوكياله مرايد أفحابات أوكي أوكيالها أما مرايدة ضد باجر تطبيق وحي ستان مجدي أو مدو وحي كتوس يسا وحا حنون مركا واحد كم مقل ضد كمركا كتير كورن ميشن أو تورنتو أو كورن ميشن أو كندا أو waxaa ku dhahay la hawla wala quwwata walla lumay ciyalkii xabsigay ka buuxaan naf ma hayno diin ma hayno dhaqan ma hayno laakiin ma arkayo مثلا shan iyo 20 sano gudaheega min laba miskiid ilaa 200 miskiid ma la socota 200 masaajid xagee laga soo bilaabay laba masaajid maanta maxay torada socotaa 200 masaajid okay wax weyn waxaana la socon إن dadka intan leeg ee haweenay hor fadhiya ee wada xijaaban inay jireen shan sano goor dadka islaamaya inay jireen wax badan oo khayr ah lama socono laakiin inta mugdigan aragnaa marka maxaan u baahanahay qaarna waxay jirtaan muraayad wadacad oo qurux badan oo waxa laga sheekeeyay waxba ka jiraan khayran ku jirna alxamdulillah rabbil alamin kaasina waa mid kale hurda marka waxaan u baahanaynaa miisaan saarno reer galbeedka aan ku noolahay aan u xidhanno muraayad wax walba caadi inoo tusta
اوكي waxaan leeyahay reer galbeedku wuxuu leeyahay negative iyo wuxuu leeyahay positive okay waxa inii sheegayaa shan arrimood oo positive u leeyo inaan ka faa'iideysanahay tahay oo guriyeen in laga helaa oo ciyaalkii la ku barbaarinaa kow wuxuu leeyahay reer galbeedku wuxuu leeyahay wax dhado siyaadatul qaanuun xeerku dadka oo ka wada sareeya afrika dadka xeerka ka sareeya ma laakiin hagan xeerka iyo ummada ka sareysa haddaad ku tiraahdo imika nin reer galbeeda ilaahay ka baq ma ku dhageysanayaa kuma dhageysanayo laakiin haddaad ka tiraahdo xeerku sama sheegayo uu kaa joogsanaya xeerka la ixtiraam alqaanuun waa number 1 waa wax fiican labo ووحي أي دكتين هذا كي إلهي ما وحي سميستين وحي احترام يعني لبو الإيمان بالعلم أقوته رميسيين وحول أو دبعت أيمك عنك وبتكيني حبسي ذيك بوحان سي علمي ما أبارنا ولي محا وبتكيني حبسي ذيك بوحي ظاهرا المحاكمة فين ما كان محاكمة إن إيمان تأوبتكي صوماليات أي نقدان نمبر 1 حبسي ذيك كندا سؤال ما يسويدنا ما يسويدنا بس علمي ما الله صباري حلقة كيمتي إياك مسؤولة موالدك ما إسكولك ما civilization كان ما جوي كان ما الله باري أو ما لقوا قاطع دراسات علمية ما الله صباري ما يويان لكن يكون حلو مسين وحول أو دعاء سي علمية وبارا ويكذب تقال أريد صدق هذا رجل في عينه محي والتنظيم ونرى organization نرى شو ده organization way habaysan tahay adiga waxa rabtaa inaad guursatid ee kugu soo dhici waase guursanaysaa telefoon baa lagu soo diray ha sha habibati tata ay خلاص dadka way rasaa iyagu waxay garanayaan markuu guursanayo xataa waxay garanayaan markay ureysanayaan waxay garanayaan inta ubadka u kala dhaxaynaysa waxay garanayaan lacagta intay dhigayaan waxay garanayaan laba 3 sano 4 sano kadib waxa uu sameeyo 10 sano kadib waxa uu sameeyo waa organization waa hab waqtiga habaysan bal waxa weeyaan waa takhtiit afaraadi waa planification noloshu waa khidta ay leedahay iskama socoto waa nolol la dhigay iyadoo isma wado yakaa wada annaka nolosha ina wada calaamaatigi bi carabtada say ku imatay baa loo socdaa may sida u jabto baa loo kabaa waa maaha iyagu sidii ahaan lahayd bay u dhigayaan ugu dambeynta waxa weeyaan xorriya jirta liberty waa kan maanta xaqana fadhina miskiidka inta leeg baa leenahay xorriyad ma ku fadhina diinteena ma ka shaqeynaa wax askaro inoo iman wax inoo diidi maxaad u samaysay naga oranin haddaan kol qaanuunka ilaano xorriyad baa jirta marka shanta shay waa wanaagyada ay leeyihiin okay dhinaca kale hadana waxay leeyihiin 5 arrimood oo reer galbeedka halis ah aan ubad ku korinino ee qoys ku dhex sameeyno kow maxaa ugu horeeya waaba caalam bila diin meeshan iyo ilaahay way isdiideen subhanahu wa ta'ala waa caalam bila diin marka la baaray diintu wadanka Kanada ihtimaamka qofka waa taymisaad qofka Kanadiyanka diintu halkay ku jirtaa waxa isku khilaafay waa 5 iyo 8 amba waa tashanaad waxa ka horeeya qofku xurriyada inuu iska noolaado raaxaysto waxa laakiin qoys diintu waa tashanaad meelaha gobolada qaarna waa 8 halka ay Mareykanka ka tahay diintu 2 amba 3 ay ka tahay okay qofka muslimka diintu waa 2 roon bay u tahay waxa uu isweydiin waa diin laakiin markana joogtid diin male iskoolka waxa la dhigaa waa diin la'aan halka wajibto waa negative arinta labaad waa maxay waa xorriyada sheegeen xorriyada ziyaada adigu ilmahaaga aad dhashay hooyad u tahay laakiin mas'uul kama tihid waxa ka mas'uul dawladda hadii lagu afganay waa laga qaadi ilmaha aad dhashay haduu ka ashkatoodo isaga la barwana oo ku soo ashkatay okay دوركي أسرة يا قلي دولة قشي المها محل سيء حرية بالسيء محاقرا المه الدين تودانو قانا كرام كم قص بكرت الدين هذا أوكي وحرية زيادة وين الأصل محاهد قفك وإد المه قاضي الدين توالد كيس إلا هذا مركو كان قارنا حرب وياه لكن أنت هره
saasay ahayd okay xorriyaddii siyaadada ahayd waxay keentay burbur bay keenaysaa khaladda waaweyn saddex waxa weeyaan dowrkii labada waalid ay lahaayeen labada waalid roolkay nolosha ku lahaayeen waxaa laga dhigay wax yar maxaa yeelay dowrka waalidku muxuu ahaa dee isagaa lacagta bixinayay imika wax lacag baa lagu dhigo wuxuu leeyahay ilmaha sii annaka ilmaha wali su'aasha waxay ka dhalatay ilmaha iyaale islaamku wuxuu isweydiiyey ilmaha iyaale qaanuunka reer galbeedkuna wuxuu isweydiiyey ilmaha iyaale cunuga iyaale qaanuunka reer galbeedku wuxuu yidhi cunuga waxaa leh dowladda iyo ummadda adiguna waad u haysaa okay islaamkuna wuxuu yidhi ilmaha ilaahay baa leh adiguna ilaahay baa kuu dhiibtay laakiin adiguna waxaad leedahay lahaasho ilmaha anta wamaaluka liabiik adaa leh adiga waxaa kaa sii xoog badan allah subxaana wa tacaala halkan ma jirto ilaahay baa leh iyo anigaa leh anaa dhalay anaa saan doono ka dhigi waan hagaajisani meel baan u jihayni lagaama yeelayo halkaa mari baa lagaa yidhi haddaad mari weydid waa lagaa qaadi waa la marsanayaa dowrkaagii baa daciif noqday arrinta afaraad waa maxay qoyska burbur baa ku yimid dhulkan qoysku waa maxay qoys ma jiro waa burbureba marka ikhwaani fillah intaasi waxaa kaga baxaynaa igana noqdo insha allah intaa waxaa kaga baxaynaa su-aasheenii labaad oo ahayd su-aasheenii labaad ee ahayd reer galbeedka waxaanu imaanaa mashaakilka ina haysta muxuu yahay waa ka su-aasheenu taxadiyaadka ina haysta problemyada reer galbeedka inagu haysta qoysaskeena muslimka maxay yihiin waxaan ku soo urinaynaa shan arrimood xabad xabad baanu sheegnaa hal baanu sheegaynaa taxadiga koowaad waa maxay waa mashaakilka daakhiliga qoyska gudihiisa wax yaalla weeyaan oo u kala baxaya saddex arrimood eega gudaha qoyskeena markaan reer galbeedka joogno mashaakil baa ina haysta mashaakilkaasi waa daakhili waa gudaha dibad nagama imanayo saddex nooc buu kala baxaa kow muxuu yahay waxa ugu horeeya wax weeyaan sidaam saqaafi waxaa is haysta culture-kii iyaa isku dhacay adigu waxaad ka imatay culture ninkuu yahay libaaxa koobaad hooyadu tahay goosha labaad ubadku yihiin kuwa saddexaad waxaan imanay caalam ilmuhu yahay libaaxa koobaad hooyadu tahay goosha labaad aabbuu yahay miskiinka saddexaad halkaasaa la yimid okay waxaa isku dhacay sidaam saqaafi allahu akbar allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الفضيلة وبعث مقام محمود ذاته اوكي اخواني اخواتي تحديكم بحالنا waa gudo waxaana saddex waa u kala baxaysaa waxaan koobaad waxaan dhahnay waa isku dhac shoog isku dhac culture laba dhaqan baa isku dhex daray guryaheeni okay ilmaha waxaad ku dhaxaysaa muslina tahay waxa laga soo leeyahay markuu dugsiga aado oo iskoolka soo dhiganayo waxa lagu soo dhaxaya waxa tahay xor baa tahay waxaad doontaad aamini karaysaa ilmaha waxaad ku dhaxaysaa nabi aadan iyo xawa ka imanay
waxaa laga soo dhahayaa danyar baad ka imatay ilmaha waxaad ku dhahaysaa aakhiro xisaab baa jirta waxaa laga soo dhahayaa wax xisaab la dhahda ma jirtee adduunka ka faa'iidayso ilmihii waa is haystaa marka aqalkii maxaa ka jira gudihii aqalka loolan siraac baa ka jira arrinta labaad ixtiraamkii waalidka guriga waad arag xadiiskii soo ma garanaysiina ninka intuu caano soo qaaday xadiiskii dheeraa ee toobadda ka hadlayay oo hooyadii iyo aabbihii usoo caanaha usoo lisay oo ku soo qaaday xeedhadii weelka usoo qaaday oo raba inuu waraabiyo uu cabsiiyo uu raashimiyo u yimid inay iyagoo jiifo hurda oo yidhi haddaad kicisidna waad dhibaysaa haddaad daysidna dee ciyaalka caanaha ka cabbaanna beritoole caano la-aan baa ku dhici caanihiibu siduu saa u hayey ay ubadkiisii lugaha aabba-ani si ay ka lahaayeen ubadkiina ma siin caanihii sidaa u hayay way waagii baryey ma seexan markay soo kaceen buu caanihiisii maanta muu jiraa ilmo sidaa yeelaya kanada ma dhex fadhiya su-aal weeye khatara marka qilatu ixtiraami alwaalidayn maba rabnaba inay sidaa yeelaan hooyo baad ka waayo hooyo aabe yaad ka waaysaa waxaa ka waaysaa ma xanuunsan tahay adoo halkan caawoo dhan galgalanaya ayuu ku dul mariyo hayehe ma lagu hayaa ku ka dhaafaya waxaa uga wanaagsan waxaanu ku jiro caalamkan beenta ee la geliyey imaginationka la socaa arrinta saddexaad oo gudaha inaga haysta wax been taxadiga inaga haysta waa maxay waa tafkiiga waxaan ka fikiraa markuu gurigu dumaan aragnaaye guryaheenu way duusan yihiin guryaha waxaa jira matalan gurigaagu waa 4 qol ama 3 qol guriga waxaa ku jirta 2 gabdhood qolkanna waxaa ku jirta laba wiil odayga iyo xaaskuna saaloonkay fadhiyaan telefishinkay fiirinayaan afartu waxay ku jiraan dhinaca caalamkiisa nin kastaba caalam buu iska jiraa qurux badan isagoo samaystay waa mufakakba wax ka dhaxeeya oo iskugu yimaadaan ma jiro nin kastina marka uu baahdo unbuu galaa meesha oo cuntada soo karsaa cunaa cunto la wada cuni cunto la wada biyo la wada cabbi la sheekaysani masaajid la wada aadi qaliilun maahum marka waa la dumay markaas waa waxyaalada in haysta iyo ka mid ah mashaakilka in haysta waa taxadiga daakhiliga labo التحدي الاجتماعي مشاكل بلشاء إنها يسطا اجتماعية أو معي قريتها ترى وعدم التفاهم وحاجرة إذا قد حين تفاهم أو نجرين أو كد حياة والدك إي أبدك ويكلا قرين ويكون ربو أكري ويكون ربو أكرين والدك وحو أكري إنو الميسة مسكيت كحلو المونا وحو أكري أنا دورني مسكيت كودي بدورني سيد أنا تقي مسكيت كمركا دورو adiga markaa maxaa kaa maqan xalkan ku dari doonaaye sidee baad isaga uga dhigi inuu doorto miskiidka adoo ha u dooran miskiidka waa su-aal adag ilmaha waxa ugu adag waxa weeye inaad ka tiraahdid waxaa samee hadduu sameyn waayo aad ku qasabtid wuxuu sameynayaa wax dhacdo revolution tawra wuu kaa hor imanayaa tamarud buu sameynayaa caniid buu noqonayaa markaa baad odhanaysaa alla ilaahay kan hagu iga keenay laa xawla walaa quwwata cabaadaysa markaa lama raba saas waxaa la bartaa sidee ilmaha waxa aad doonaysid loogu barmajeeyaa waa dowlad seminar baa ku qaadan karna insha Allah mar dambe hadii Allah ta'ala arinta kale ee khatarta waxa weeye ijtimaaciga ee siraacan haysata waa bayna alqawmana wal khaskhasa siraac bayna haystaana ka dhexdoona Soomaali baan nahay waxaan rabnaa ilmaha inaan Soomaaliyeyno ilmuhuna wuxuu rabaa inuu Kanadiyaan noqdo aduu waxa la aabe Soomaali baa tahay wuxuu gulay aabe inuu Kanadiyaan adaa Soomaali ka yimid أنا سؤالي مارك ميهي أوكي أبا واتهاي إنير حالته وحن كواركي درسي والشيخاني ودقي إنا يرى حالك كل شيء صومالي أنا قاعدين لكن في صومالي قصدا نقول الله نسيك في عنقول الله وحنقول في صوماليا ساكو بري وحيجي بقى يقفر حسانك وحيجي شيخ وحنلاهي أب يهويو وناكسن وكان أبوهما صالحا أفرحني والله أسلج صدري لابتيدي وبرف يقبو بنحدقه حول آبائي هو يوم أكسن الله الصومالي قام معان أنو إسكما برن وحاي بري والد كاسو كله إلا السياحة شهادة نوبل لنعضو مساجد لقب بحي شيخ أو لنعضو والد كاستا أفصوالي أبر أوبت كيسا وإلا الله سياشات التقدير أوكي قومنا دي يكنديان قاس حيشتا وحال ربكا سيدا أدو الصومالي كندا ugu noolaa iyadoo halka ku diri doona
تحدي صدحات أي مشكلة صدحات وإعلامك أو ورباهنتو أدوغو واحد داوتا إذا عاد الصوماليات حد داوتا يونيفرسال تي في حد داوتا waxaa badan ee wariyada ku hadlo dhibada wata isaguna waxa muu la socdaa ilmaha dhashay warba kama hayaba soo wax ku la socdaa adigana kana ku sameeya isagana kana sameeya aqligiisu halka buu ka abuurma adna aqliga ka abuurma waa koow labo taxadiga islaamiga waa maxay macluumaadka informationka warbaahintu ay bixinayso waxa la boqolkiiba 90 waa dacaayad waa been boqolkiiba 10 صح beenta lagu akhrinaya beentii qofku qaadanaya inay run tahay waa dacaayad waxa rumaysanaysid marka ma dacaayad ba cilmi ah ma ha cilmi waxba lagu weyneyn waxba lagu yareeyay xaqiiqo runa ayaa laga qarini been ba xaqiiqo laga dhigi wixii baad guranaysaa waa taxaddi islaamiga taxaddiga islaamiga maxaa la socda waxa la socda hubiyad identity qofka waxa laga baabinaya ahaantiisi ahaan kala loo sameeynaya waxaas oo dhani waa mashaakil qoyska ku socda okay waqtiga inagu yare taxaddiga afraad waxa weeye taxaddi al-fikri wa ta'limi halka fikirka maxaan rumaysanahay anagu guriga markaan joogno gurigeenu muxuu rumaysay risaalada gurigeenu waa maxay guri risaalad lama jira risaalad ay u qoran tahay oo ciyaalka iyo odayga iyo islaasoogi ma jiraan fikir ma lihin aan difaacino marka taxaddi fikri aan ku jirnaa caalam dhan baan imanay oo inaga horeeya 600 sano anu waxaan idhahdaa qaar baa saa dhehe anu waxaan idhahdaa naga horeeya 6,000 sano reer Canada iyo reer America iyo reer Europe waxay bilaabeen taariikhda Greek la soo bilaabeen Greek ilaa imika waxay dhisayeen waxaan weeyaan annakuna waxaan dhisayna xadaaro kale oo ka dhisayna bariga Afrika oo ay soo dhiseen awoodeen oo ay ka soo qaateen Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo ajaashi hore ka soo qaateen tiibaan ka imano waxaan dhaximanay tan 6,000 isla jirta marka taxaddiga fikriga oo in haysta تعليمي كدري تعليمته معها كو لوجي والله هينا maxaa ku dhacay marka caruurteeni waxay u baahan yihiin runtii in English inta lagu la hadlo wax la baro nabigana sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri marka li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humri ni'am inuu qof ilaahi darta ku hanuuniyo ayaa ka fiican oo ka qaalisan adduunkan waxa yaalo waxa ugu qiimaha badan marka saas loo fahmo insha Allah hatta hadaad dad garanaysid u baahan Englishka ku hadla u baahan inay meeshaas tagaan wax ka faa'iideystaan halla keen insha Allah ta'ala marka sheekha su'aalahan waa weydiin doonaa laakiin muhaadaradii ayuu inoo dhameystirayaa marka hore insha Allah ta'ala waqtiga intaas aan kaga faa'iideysanayna وجزاكم الله خيرا فليتفضل شيخنا اوكي بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد ولا ليال ما دارين waa muddo la fadhiyay marka insha Allah ta'ala waxaan ka hadalnay baahayd afar mushkiladood oo problem ah taxaddiyaad ah hal baa inoo hadhay halkii baan sheegaynaa marka afartii haddaan is xasuusino ka koobaad wuxuu ahaa mushkilad daakhiliya ta labaad wuxuu ahaa mushkilad bulsho ta saddexaad waxay ahayd mushkiladda warbaahinta iyo iclaamka ta afaraad waxay ahayd mushkiladda fikriga iyo tacliinta mushkiladda ugu dambaysa oo shanaadi waxa weeye التحدي القيمي التحدي القيمي القيمي maxay ka dhigan tahay waa mushkilaadka la ku xidhan dhinaca valerska halka qiyamka wax dadku ay rumaysan yihiin annagu markaan muslim nahay waxaan rumaysanahay inay nolosheenu ka soo bilaamatay Allah waa qiimo weey waxaan rumaysanahay qiimo la yiraahdo inuu qofka muslimkii ilaahay agtiisa kariim yahay ciise leeyahay waxaan rumaysanahay inay diintu ina xoreynayso waa qiyam marka dhinaca kale reer galbeedka qiyam kale yaala qiyamka yaala waxa kamid ah tii aan soo sheegno xorriyada ziyaadada waxa yaala waxa loo yaqaano individualismiga qofka oo fardi oo qoyska rumaysnayn oo qoysku muhiim ahayn
marka taxadiga qiyamiga waxaan u baahannahay sidee baan uga hortagaynaa isagana marka waxaan idin sheegayaa maalan qiyamka reer galbeedka yaalla waxa uu keenay qoysku inuu dumo maalan 1997 waddankan faransiiska la dhaho oo ah dowladaha reer galbeedka dowladaha ugu culculus yurubna dowladda labaad jarmalka dabadii ay ingiriiska waxaa la dhahaa halka ay gaadhay qoysku qiimaha qoysku uu leeyahay boqolkiiba 40 ubadkii dhashay waxay ahaayeen ubad aan la garanayn aabahood yacni boqolkiiba 40 ubadka dhashay waxay leeyihiin 53 boqolkiiba dumarka sida ubad caloosha ku sidaayay waxa ay ka qaadeen uurkaas iyaga oonan wax oday qaba uunsa jirin arrintaasina waa muhiim waxa uu faafiyey taqriir ka soo baxay warbaahin war ka soo baxay madaxtooyada faransiiska qaybta dimuqraafiga tirakoobka waxay sheegaysaa dadka faransiisku intooda ugu badan waxay rumaysan yihiin in qoys la sameeyo inay tahay wax aanan loo baahnayn routiina macno ma sheegayso adigu berigii hore 70kii iyo 80kii waddanka faransiiska ma suurtogelayn inuu madaxweyne ka noqdo nin aanan xaas lahayn ruux aan xaas qabin inuu madaxweyne ka noqdo ma suurtogelayn laakiin maanta waxaa madax ka ah kani hortiina waxaa madax ka ahaa nin aan xaas lahayn oo xaas uu la nool yahay buu kula galaa aqalkii madaxtooyada ma qabo reerkiisii maaha uu la nool yahay bis marka qofkii modelka noqonaya markuu sidaa yahay dadkii caadiga maxaad ka filaysaa marka adiga halkaa baa la gaadhayaa marka qoysku qiimo uma leh iyaka agtooda adiga agtaadana qiimo weyn buu ku fadhiyaa waa taxaddi ina haysta weeyaan taxaddiga qiyamka waxaa ka mid ah oo cajiiba jirhkaaga ma adigaa leh mise ilaahay baa leh qiyamka reer galbeedku wuxuu rumaysan yahay qofka jirhkiisa isagaa leh siduu doonu ka yeelayaa hadduu doono waxbuu ku mudmudi hadduu doonana waxba kama iska daysani hadduu doono carabkiisuu 100 wax gelini farriyihiisuu gelini jirhkiisuu ka dhigi maaragtay sidii waraaqad wax lagu sawiro yaa waxa cajiiba nin baa maalin dhaweyto waqtigii oo kuleelaha ayuu iska saaray garankii waa sii jeeday waxaan mooday sabuurad soo taqaanaan sabuuraddii wax lagu qorayaan moodo sii jeedaa li'anna dhabarkiisii waxa ku sawiran nin iyo naag dhan buu ku sawiray anoo kii ka yaaba baan maqaaxi galo waxaan arkay mid intuu timihii iska xiray madaxiisii oo dhan sawir ka dhigay madaxa dhanba waa sawir baa ka buuxa marka qofka qiyamka uu rumaysay waxa weeye jirhkan anaa leh waxaan doonaa ku samaynayaa laakiin islaamku wuxuu ku leeyahay qiyamkiisu jirhka adu ma lihid iyaa leh allah baa leh wuxuu ogol yahay unbaad ku samayn karaysaa waxa uunse ogolayn jirhkaaga kuma samayn karayso waa lagala xisaabtami beritoole markaa sidaas daraaddeed waa inaad taana waa waxyaalada ina haysta aniga markaa waxaan kaga baxayaa si aan su-aalaha ugu tagno muxaadaradii xal dhiima sidaya maanta waxaa nii keenayaa afar meesaash 4 risaaladood 4 risaaladood waxaa wanaagsanaan lahaa inay raggiina meelahan ay fafadhiyaanoo ay ila dhegaystaan oo haweenkuna ila qaataan risaaladda koowaad waxaan joognaa waddankan dhulkan habkan systemkan inaga culus waxaan dhex fadhinaa warshad weyn oo inaga culus maxaan yeellaa maxaa inaan yeellaa si aan qoyskeenna u badbaadino risaaladda koowaad ay nii sheegay waxa weeye ha layla fahma risaaladda hal la fahmo risaaladda waa inaan la barto sida qoys loo sameeyo
أنا waxaan aad ula yaabaa qofka noqonaya kaalkaalisa dhakhtar gabadh haday noqonayso ama nin noqonayo imsa sana la baraa 3 ilaa 4 sano baranaya ugu yaraan 2 sano la gelin meel waxa la barayaa sidee baa qof bini aadana jirkiisa loo dawaaya maxaa la weydiiyaa okay annaka waxa cajiiba qoys dhan baan inaan asaasan rabnaa ma naqaanan sida loo asaasayo waddanka Japan la yiraahdo Japan waa waddanka ku yaala Aasiya waxaa imika la soo saaray fikrad dhahaysa si uu qofku qoys u sameeyo waa in la bara 10 12 lagjar ah lagjarada ugu yaabka badan leh waxa weeye ee anigu aan la yaabay waxa weeye waxaa la baraa gabadha haddii ay rabto odaygeega qalbigiisa ninka qalbigiisa inay aado 6 shay oo la sameeyo markaa buu ninku maxaa ku dhacaya waaba jabayaaba waa aqbalayaaba waa wax la gaaray cilmi nafsiga lagu daraasay psychological waa la barayaa isagana waxaa la barayaa ilaa annaka diinteena waxay naga tiri gabadha hadduu ninkeegu u yeedho ay diido ilaahay baa lacnaday soo maaha imika waxaa lagu leeyahay haddaad u yeedhay ku diido ood qasabtid maxkamadda lagu taagayaa marka raggii waxaa laga maarmaana fiqhul bii'a wax dhalaa jira fiqhul bii'a environment isbedelay inta aan la qabsanno inay ragguna bartaan gabadha adoona qasbin waxaa jira cilmi la yiraahdo cilmu alwusuul ilaa qalbi almar'a fannu alwusuul ilaa qalbi almar'a gabadha sidee qalbigeega loo gaadhaa aniga markaa waxaan rabaa inaan tababaro aqoontaas ah inaan la barto la culaysiyo waa xalka koowaad ee soo bandhigayo xalka labaad ee soo bandhigaya waxa weeye walaalahayo waa xalka aan u bixiyey aqaladeena han ku dhisna aqaladeena xubbi iyo tafaahum waxa kale iska dayno xuquuqda gabadhu waa imisa waan xafidnay waa in nafaqa la siiyo waa in la ilaaliyo waa in la koriyo okay xuquuqda ninku waa maxay waa in la adeeco waa in la weyneeyo waa in laga dambeeyo waan xafidnay laakiin yaa sameeyay imisa qof sameeyay way yariin maxay naga maqan markaa han baranno sideen isku jeclaana fanul xub waxaan u bixiyay anigu fiqhul xub fiqiga jacaylka soo ma naqaana fiqiga weysada soo ma naqaana fiqiga salaada soo ma naqaana fiqiga soonka han barana de fiqiga jacaylkana oo inaan ka xishoonin jacaylka han barano romantiga han barano okay anigii inii sheegay waxaan iga yidhi waxyaalada aan baryahan aan culummada ka bartay fakka ku takhasustay waxaa ka mid ah waxyaalada qofka bini'aadanka jacaylkiisa u biiriya waxaa ka mid ah inay dadka bini'aadankii markay isqiimeynayaan isku qiimeeyaan aniga nishka dhukashada soo maaha waan la yaabay dhukashada anigu waan dabaqaynaa practical baan gashay waxaan helay 85 ilaa 90 sax weeye xaaskayga hadday cadhatii ugu dambaysay ku jirto oon qubulaad u sameeyo waa iska seexataa markaa laakiin qubulaadku iska dhulka un maaha waxaa jira meel laga dhukanaa aniga ku sheeg halkan baa laga dhukanaa ku kari maysid soomaaliga hooyada halkan waa laga dhukadaa waalidka aabbahana waa laga dhukadaa laakiin aabbaha waxaad u dhukanaysaa xubban wa taqdiiran waad weynaynaysaa hooyada waad weynaynaysaa waa cadiima xaggaa dhasha lugahaygaad dhukanaysaa lianna jannadii baa lugaha hoos yaalla markaas waa wax muhiima laakiin xaaskaaga markaa halkaa ka dhukanaysid waxaad qabsanaysaa maskaxdeedii ragow waxaad rabtiin inay dumarku aad qabsataan waad kari laadihiin risaaladdu waxa weeye halkaa ka dhukada dumarka gacanta bidixna halkan ku qabo gacantii midigtii afkii waa ka dhukatay bidixdiina waxaa soo qabanaysaa halkan waa halkii xasuusta salaaxna waad ku daraysaa salaax okay salaaxaas aad ku daraysaa waa ragga waxaan u sheegayo waxa ay gabadha ka baabi'inaysaa xasuustii wada xumeed oo dhan
xasuus xun baad ku abuurtay waad ka masaxaysaa halkanna waxaad ka haysaa afkii marka qofkii waa isbedelayaa haweenka waxaa la dhahayaa adiga waxaa laga rabaa odaygaaga ama ninkaaga marka aad rabtid inaad dhugatid daanka ha ka dhukan saaxiibadaa maaha afkana ha ka dhukani sariirtii lama fadhiya moogta waxaad ka dhukanaysaa halkaa laabta halkan soo ma arkaysaan wadnihii baa dhug 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 buu leeyahay wadnuhuna muxuu shicaar u ahaa jacaylka iyuu ahaa marka wadnahaad afka saaraysaa gacantaadii midigna halkee tagaysaa dhabarkiisay tagaysaa markaabaad salaaxaysaa dhabarkiisii maxaa markaa dhacaya isaga maxaa ku dhacaya waxa uu arkayaa inaad isdhiibtay istaslamti raggu waxay jecel yihiin gabadhu inay isdhiibto okay maxaa la rabaa markaa هذه قبلة ما ها قبلة عادية صدح قبلة جرتا صدح دوكشة جرتا دوكشة واحد جرتا لنا هذا دوكشة ده اعتراف كخلتك ما تكاد خلدنتيد ولا دوكشة قفكات خلدنتي واحد جرتا دوكشة لنا هذا دوكشة ده وينيتها قبل هذا يو امتحان هالشيء حاس كاجي وحوي سوق رخصة دي بابور خلقوا دي يسوي هالشيء وحوي المساجد كي القرآن كسوح حفظي وحوي بسوق قبته dhukashadaasina macnay leedahay waxaa jira dhukashada jacaylka isku mid maaha laakiin annaka waa isku mid sidaa maaha dhukasho walba macnay leedahay daqiiqadana way qaadataa waa inay 3 second 6 second waxaa jira naqaskaa la qaataa neefta si loo qaato wax waa cilmi annaku waxaan moodnaa xataa telefishinka markaa daawanaysiin dadka si dad dhukanay in iska dhukanay moosa waxaan waa cilmi waa laga shaqeeyay wax la baaray oo waqti la geliyay oo cilmi lagu gaaray annaku waxaan u bixinaa waxa saqaafatul maskuutu canha adeer waxa ka aamus a'uuzu billahi minash shaytaan wadaadka hadaa weydiisidna inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hadaad waalidka weydiisidna uu ku leeyahay iyaan weydiyaadee wuxuu weydiinaya ilmi yar computerka netku galay internetka marka baa loo sheegayaa been iyo run la marka annaga waxaan jecelahay in guryaheena jacaylka la weyneeyo guri jacayl laga dhigo jacaylku inuu noqdo wax aanan inaga hadhin inuu noqdo waxaa jira mar horaan ka sheekeeyay oo inaad maqasheen waxaa jirta wax la dhahdo habeenka romantiga habeen romantiga jirta leyla romansiya dadkeenu male leyla romansiya waxay ka dhigan tahay xataa adigoo 60 jir ah oo islaantuna qodobada naga yirihiin ay gabadhuna iska tahay 40 ama 45 ama 50 iska tahay romantigu ma dhabaado waxaa jirta cilmi la dhahdo al-hubb al-mustadam sidee jacaylka loo waariyaa adiga oo 30 sano xaas la ku sano leh iyaa la mid tahay habeen dhawido September yaan anigu aan dabaaldegay 25 jirkay 25 jirkii aan xaaska lahaa xaaska waxaan ku iri caaway habeenkaas guursanay waa habeenkee waa caaway tiri anaguna waxaan ku iri habeenkaas guursanay kuma garanayne caawad ka macaan tahay malab baataan keen malab laakiin habeenkaas guursanay waan ku doodoonayay caawase waan ku hayaay hagad mari kartaa marka ala ayati xaal waxaan u jeednaa waxa weeye inaan sida u noolaano oo habeenka romantiga la sameeyo أنا واحد هذا هبينك الرومانتيك واحد هذا وهبين كوبي لاما إن جوري لقى بحوعيك اللي سيحيو لسكتكو السلام عليكم هجيه هو يتجي سيرابو عاو وهبينك يجي أوكي ما له تلا سكسو كريست فندق وأنت اللي كريستو مقاحدة أنا اللي تقبض عمك لقى سو عشايو لبص على صوفر ديو ما عشان دقدقة عشان ودمانين أو مارتي سؤال السويدينيو laga baxo kadib hotelka la tago u baxsaa loo dhigo oo la qaado dharkii romantiga la qaado oo cadarkii romantiga la qaado oo ubixii romantiga la qaado oo sheekadii romantiga la qaado oo quraankii romantiga la akhriyo ma taqaana quraanka romantigu waa suuratu raxmaan الرحمن أخريا سأودع عصبارة الرحمن قريب وي
marka in la akhriyo haddaad u akhrin karayna sudaysi saaro ama maaragtay basfar saaro amba waxaa saarataa binshaawi saaro amba maaragtay shuraym amba sheekh cabdirashiid sheekh cali sufi saaro ahlan wa sahlan qur-aanka macaankiisa dhegayso nashiidad yaroo qurux badan oo soomaali amba carabiya ku dhifo iyadna ugu dhifo haddaad doontiin dee isla yara socsocda haddaad doontiin xasuusta nolosha yacni oo ha u noolaan dhagax soomaali waa dhagax laba dhagax isgara fadhida xataa markaad ka leeda waa ku jeclay wallaahi هذا ليس كلام وإن أساوي شكاستان وهبين كل دمان وايو فجر جيل هذا إني قو سلة توليل كجري ترى سلة توليلة سيستم قال كجري تبى سلة توليلة وأجر وفي بضع أحدكم صدقة رسول كان ما كان حاس كان رالي قلني ست وصدقة دوية لقمت مركب أفكا وسارسد إن دكتور أفكا حاس كاغا أنت سأسوق واحد كورونا يعني وربرقني بالقالة ورومانتيك صوت أوصيني أك والنبي يقول شيء صلى الله عليه وسلم وكان أنت سأسوق سرقة دين أفكا وقلي أفكا قلي أنا وحنا كنا لابا أفكا أنت كقبت أفكا كوسي هذا دونت هذا حب وحب وين هيجي يا بين إن الله لا يستحمل حق شيء وحان ربنا إن قلدينه أنا وحان جعلها عيال كينون يكون قران جعيل حبسيدي ديني يا هديته هو يا جعيل أبا جعيل يا وذي بادية هاي أنا كريرها يا قاعد نقايا دقنها مالها دقنها هاي أنتوا سوز يارتي قولي ولا الكيجي أو أنتوا هالك أفريستي وذي ولا الكي أو حاسكي وهر مرتو حبيبي مكين حاسكيسي شاه كان ويلك ميجي كي مدنا حبيبي من بقلبه اللهم صل وسلم وبارك عليه نبي يجيب مودي صلى الله عليه وسلم مركو يسكلم مي تقال قولي وانكي ولالك هاي زيارتك ورا وحولي وانكي صوفي ونقض النبي يقوم بهذا الهي نبي قام هذا الهي حاسك يسوى هذا الهي لكن ده لقد ديني كجري بابا ما حكوا جري لقد دينا حبيبي يقوم جرت بل يرى جيبوتي مرة سمينا دورسين استوبرع بانكولي مسجر بعد حاسك كتر هذا وانكو جعلها حلو والله بشي مرئي ما قال وحويان حاسكاغا وانكو جعلها وين الكتر هذه ايانتي طبعا جار اوكي الصبح مركز سوس ركعدي اي اسلامتك كعسيس واشقدي كتراهو انداك لقاديد واما صنطي حبيبي كده واكو مركز كريفك حمامك اديد soo meertay soo baxay ee dharkii halka soo dhigto eed xidhatid waa dharkii diyaarisay waan ku jecelahay ka dhig waa mar labaad markaad baxaysid ee albaabka furtid ay saa ka tiraahdo soo noqo waan ku jecelahay xabiibi ka dhig waa mar amsa qoreen waa soo wixii saddex waa soo rawaxday qadam macaan bay karisay waa soo fadhi baa toona balkirnay waxan adigu waad cunaysaayo naata milixda ku badanay maanta waxa ku badanay adiga kritika taqaana bas marka aad soo fadhiisatid ee carfigu ku galaba cuntada in muddo 5 sano ay tiri lix caruuraan u dhalay 5 sano wax maqal ah kama hayo iyo masruuf xalna waa laga waayay markii dadka ay la hadleen maxaa xal ma aragtay maxaan sameeyaa ay leedahay saailadan okay bismillah alhamdulillah horta waa saa su'aasha u dhigtay walaasheen waa mushkilo وانا قد يضبها حل كان وحا إنه هي إن لو تقع علماء مساجد خاصة علماء التخصص ككل موضوعا وراقضها الشرعي أنا هي ستلوب بدنا فعلا يكا مركا كلها اللي وحاجة مسألة فتوى هي مسألة قضاء مركا قبلنا وحين ربطها مسألة قضاء إن حكم لصي حكم كنا وحوبها هي قف جوانبتو دhan ka eega jaanibkii ninka eega jaanibkii gabadha eega jaanibkii ubadka eega mustaqbalka eega waxa dhacayo dhan eega marka si shumuula u eega marka waxa kula talin lahaa gabadha walaashaya inay u tagto masjidka u dhow khaasatan masaajidka Khalid bin Walid waxa ka jira maaratay mas'alada
maaragtay ragii ka shaqeynaya oo sheekheena Abubakar uu ugu culus yahay marka insha Allah isaga talada ha loo dhiibay insha Allah iyo culimada ha gaaloo tago sallallahu alayhi wasallam jazakallahu khairan su'aasha saailadan waxay leedahay kulay su'aasha ma cadda laakiin waxay leedahay salaan kadib gabadheeda ayaan ku iri hooyo macaan kadibna qof baa igu yiri ma dhihi kartid oo lama ogola marka arintaas la iga jaahil bixiyo sheekh ayay leedahay marka waxa mushkilada oo ka jirta ma jirto gabadhaadii waa ala dhalay macaani ku tahay alxamdulillah adiguna hooyo macaan baad u tahay iyadoo gabadhaadii macaaneed waa waxa aan doonayna in la isku dhaxbo marka haddaan waxaa ku dhihi weyna maxaa ka horeynaa aabbayaasheen marka annagu yarayna markay nala hadlayaan xataa magaca noolama yeedhin war adaan ku sheegay adaan kula hadlay buu ku hor jiray war yaa adaan kula hadlay markaabuu hadda waa tan waxaan la hadlay buu dhahay tan waa tan markaa ma rabno taas waxaas macno ma keeni karto marka waxaan eegay iskuulka ciyaalka ardayda cunugyadeenna macalinka ama macalimadda u dhigta way jecel yihiin waalidkana su'aalo iska weydiiyaan maxaa keenay way u qosli waxay iskaga dhigaysaa qof yacni waa la tababaray hadduu adiga intaa kaa waayo iyadaa waalid noqon doonta wax iyadu u sheegtaa saxiix noqon waxaad u sheegtay qalad buu noqon doonaa marka ku celceli hooyo macaan wax xaaraan oo nas oo kuu diday ma jira insha allah fiima naclam gabar kale su'aal weydiisay hadday soo qorbaan ku yiri maysa soo qorin laakiin sheekha afka uga sheegay tiri waxay tiri sheekh ragga ayaa guriga maamula oo ka ah mas'uul laakiin waxa dhacda in maaragtay financialka qaabka maamulka financialka inay aad ugu xun yihiin oo ninkii lacagtii maaragtay aniga inaan uga ronahay markaas kale maxaa la sameynaa saas ayay su'aashaas ay rabto al-aslu iyo al-istisnaa baa jirta fiqigeena asalka waxa weeye ninka ayaa maamulka noocaa leh hadduu ku fashilmana waa kala wareeg mushkilad ma leh adigu la wareeg adigu maamul gabadh baa rasuulku tii yaa rasuul allah odaygaygu waa bakhiil wax lama baxo xoolihiisa wax ma ka qaataa wuxuu ka yidhi khudii ka qaad macruuf ka qaad wax wanaag wax habadsanin hana isku yaraynay wax macquula kala qaado yidhi isagoo ku ogeyn ba ka qaadaysaa marka xoolaha odaygaaga hadduu meeshii dhig leedhu dhigi waayo ahlan wa sahlan annaga urur khayri oo Djibouti aan ku lahayn marka aan doonayna inaan bixino sadaqad amaaha oo qofkaasi uu soo celinayo iyadoo bilaa riba ah waxaan siin jirnay lacag ilaa 2,500 dollar marka waxaan dhihi jirnay lacagta qaado ku soo shaqee soo celi waa cajiibka dhulkeena ka dhacday rag ma siin jirin uma dhibi jirin raggu jaad bay ku culayeen waa ka joojinay waxaan u dhiibi jirnay haweenka way soo celinayeen markaas ay haweenku u isticmaalin waxaan samayn jirnay 4 ilaa 5 biloodna raashin manaqalka u dhigaynay si ay raashinka u cunaan marka haddaad waxaan ogaanay gabdhuhu inay marka qaarkood maanta mujtamaca Soomaaliga ay ka najaxsan yihiin ragga marka hadday sidaas jirto mushkilad ma waa kala wareegi karaysaa insha Allah taala كل سؤالها واسكت معدين سؤاشان قف با إنجليش إسكريسو قري وحيولي هاي السلام عليكم you said the woman should sometimes act like the man and vice versa can you give some examples قبلها waxay leedahay waxa tiri gabdhaha marmar sidii rag oo kala u dhaqmaan iyo bilcagsiga ragana sidii dumarka oo kale marmar ha u dhaqmaan wax example ma ka bixin kartaa ayay leedahay kulli waa iska su'aal maaragtay maadaama su'aalo kale aysan jirin su'aal saas uu sii weyn ma okay anu ma oran hal fahmo haweenku ha u dhaqmaan sida raguna sida haweenka waxaan dhahaa loo fikiro marka la fikirayo hal la isrageeyo maadaama haggana ka fikiraan haweenku waa caatifayin raguna ha ka fikiraan ay qaraar decision ka qaadanayaan waxaa jira buug uu qoray nin Mareykan wuxuu yiri gabdhuhuna waxay ka yimaadeen xidig raguna waxay ka yimaadeen xidig kale macnaha waa laba caalam oo isfahmi kareen si